maamulka Jubbaland ayaa mar kale waxa ay shaaciyeen inay fashiliyeen qorshe kale oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ku doonaysay inay ciidamo ku geyso gobolkaasi Gedo. gudoomiyaha maamulka gobolka Gedo ee Jubbaland ayaa waxa uu sheegay inay hor istaageen diyaarad siday hub iyo sanad ciidan oo tirabeel taasi oo doonaysay inay ka degto magaalada Doolow ee gobolka Gedo. tani waxa ay imaadaysaa tallaabooyin xoogan oo maalmihii ugu dambeeyay ay qaadayso dowladda federaalka Soomaaliya dabadeed mar kale ayaa la tilmaamayaa in isku day kale dowladdu ay qaaday isla markaana ay ku jabtay. waxaa la tilmaamayaa in dhaqdhaqaaqyada xoogan ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ku doonaysay inay ciidamo ku geyso gobolkaasi Gedo guud ahaanba la hor istaagay isla markaana maamulka gobolka Gedo iyo sidoo kale kan Jubbaland oo iskaashanaya guud ahaanba ay hakiyeen dhaqdhaqaaq military dowladda federaalka Soomaaliya ay ka waday gobolkaasi Gedo gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi. dowladda federaalku waxa ay doonaysay qorshe lagu dhisayay maamulka Jubbaland si oo aan ahayn kan Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxayna doonaysay in fadhigiisu ay ka dhigto magaalada Garbaharey halkaasina laga yagleelo. waxa uu ahaa qorshuhu inay dhigto magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi ciidamo tirabeel gaar ahaan magaalooyinka Doolow, Balad Xaawo, Luuq iyo sidoo kale magaalada Garbaharey. tallaabadaasi ayaa la tilmaamayaa in guud ahaanba ay fashilantay isla markaana maamulka gobolkaasi uu hogaaminayo gudoomiye Maxamed Xuseen Alqaadi in guud ahaanba tallaabadaasi ay hor istaageen. waxaana uu sheegay isagoo la hadlayay warbaahinta gudoomiyuhu inay hor istaageen qorshe dowladda federaalka Soomaaliya ay ku damacsanayd in ciidamo tirabeelahi ay ku dhigto gobolkaasi Gedo kuwaasi oo uu ahaa qorshuhu inay abaabulaan dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ka dhana amniga guud ee gobolkaasi. waxaana uu sheegay inay hor istaagayaan tallaabo waliba oo ka dhana maamulka Jubbaland isla markaana laga hirgelinayo deegaanada gobolkaasi Gedo inay hor istaagayaan. dhowaan ayay ahayd markii Axmed Maxamed Islaam Madoobe hogaamiyaha maamulka Jubbaland uu ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya inay colaad ka horinayso gobolkaasi Gedo. waxaana uu sheegay inay ka shalaani doonto tallaabooyinka ay ka geysanayso gobolkaasi Gedo dowladda federaalka Soomaaliya. diyaaradan ayaa la tilmaamayaa inay tahay nooc military isla markaana siday hub iyo sanad ciidan oo tirabeel qorshuhuna waxa uu ahaa in laga dejiyo magaalada Doolow halkaasina looga daadgureeyo gudaha gobolka Gedo qaybihiisa kala duwan gaar ahaan magaalooyinka waaweyn si markaasi looga hortago dhaqdhaqaaqyada ciidamada iyo maamulka iswata ee Jubbaland ay halkaasi ka wadaan. daraawiishta Jubbaland ayaa ugu dambeeyay waxa ay wadeen dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ay ugu hortagayaan qorshayaasha dowladdu ay wado isla markaana ay ku hor istaagayso guud ahaan maamulka Axmed Madoobe inuu ka arrimiyo gobolkaasi. sidoo kale Axmed Madoobe ayaa isaga qudhiisa qorsheynayo inuu geeyo magaalada Ceelwaaq ciidamo kale oo tirabeel kuwaas oo ka imanaya dhinaca Jubbaland. Kenya ayaa la tilmaamayaa in sidoo kale uu la kaashanayo dhaqdhaqaaqyadan ayaa siyaabooyin kala duwan uga soconaya qaybo badan oo kamid ah gobolkaasi Gedo. waxaana la tilmaamayaa dowladda federaalka Soomaaliya in tallaabo kale oo ay qaadayn mar kale ay ku fashilantay ka gadaal wixii ka qabsaday Rais Kamboni oo dagaal xoogan ay la gashay maamulka Jubbaland. waxaana la tilmaamayaa inay qaadayaan tallaabooyin kale kuwaas oo suurtagal aan ka dhigi karaynin qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya ay ku marsiisanaysa guud ahaanba inay maamul uga dhisto gobolkaasi Gedo. waxaana la tilmaamayaa in tallaabooyinkani oo isbiirsaday aysan suurtagelinaynin qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya ay maamul cusub uga yeelanayso magaalada Garbaharey ee xarunta gobolkaasi Gedo. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu eedeynayaa in tallaabooyinkan isaga uu hormuud ka yahay. waxaana la tilmaamayaa inuu qorsheynayo in guud ahaanba gobolkaasi si awood uu kula wareego. waxaana dowladdu qorsheynaysaa in 16 kursi ee deegaan doorasho ee Jubbaland isla markaana yaala magaalada Garbaharey isla markaana ka soo gala gobolkaasi Gedo. dowladdu waxa ay doonaysaa inay gacanta ku dhigto tallaabadaasi ayaana la tilmaamayaa inay wax waliba dowladdu u sameynayso isla markaana ciidamo tirabeel ay geynayso halkaasi. balse Axmed Madoobe ayaa la tilmaamayaa inuu qorsheynayo inuu marsiyo dhabihii uu maray Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii hore ee Soomaaliya kaasi oo uu kaga adkaaday doorashadii ka dhacday Jubbaland isla markaana 16 kursi ee yaalay magaalada Garbaharey uu geeyay magaalada Ceelwaaq halkaasi oo lagu soo doortay. waxaana la tilmaamayaa in mar kale qorshahaasi uu danaynayo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe isla markaana uu doonayo qorshaha uu wado ra'iisul wasaaraha inuu ganafka ku dhufto. waxay u muuqanaysaa tallaabadan mid culus oo dhinac waliba uu qaadayo tallaabo isaga u gaara taasi uu ku doonayo in markaasi awoodiisa uu ku tooxsado. lama soo oga xiisada ka alowsan gobolka Gedo iyo halka ay saldhigan doonto.